بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam inaan ka hadalno makaanada iyo maqaamka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin sidii aan ilaahay uga dhowaano jacaylkooda iyaga aan jecelnahay iyo camalkooda wanaagsanna inaan ku dayanno liannahum nasaruu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam marka maanta waxaan ka hadlaynaa makaanatu ahli badrin sidii aan hore u sheegnayba waxaan ka hadlaynaa nusuusta oo qur-aanka iyo sunnadaba leh ee si guud ahaan saxaabada uga hadashay ama qeyb badan oo isku jira guud ahaan uga hadashay marka fadliga gaarka ah oo saxaabi gooni uu leeyahay taas waa mar kale laakiin midaan waxa weeyaan fadli ay kulligood ay leeyihiin ama qaar badan ay wadaagsadaan ama qaar badan ay macnaha wada leeyihiin marka waxaan hadda ka hadlaynaa dadkii muslimiinta ahay oo saxaabada ahay ee dagaalkii badri la yiraahdo ka qeyb galay oo lagu magacaabo ghaswatu badrin ilkubraa dagaalkii badar waa meeshii dagaalka uu ka dhacay ee weynay markii annaga hadda aan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa fadliga dadkaas ay leeyihiin uga hadli mayno ghaswatu badrin siday ku dhacday iyo taariikhdeedii iyo maxaan ku iraahdaa uga hadli mayno waxaan ka hadlaynaa dadkii ka qeyb galay dagaalkaas fadliga ilaahay iyo rasuulkiisa ay u sheegeen aan ka hadlaynaa aan u jeedno marka fadli ay qeyb badan oo saxaabada ka mid ay wada leeyihiin laakiin taas diidi mayso inaan waxyar aan ghaswadaas aan ka taabanno ulajeedadana ay tahay dadkaas fadliga ilaahay uu siiyey waxay ku mutaysteen wax ka mid inaan wax ka ogaano waxaanu ognahay ghaswatu badrin intayna dhicin muslimiinta siday ahaayeen dad oo daciifiin ah oo acdaada ama gaalada ay meel kasta ka jiraan ee khatar ay u yihiin in ayaga dhan lala wareego marka bal u fiirso liannahu waxay ahaayeen muslimiinta wakhtigaa jiray muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriinta waxay ahaayeen dad maka ka soo baxay oo xoolahoodii iyo guryahoodii laga reebtay oo ayagoo waxba aan haysanin oo faramaran yimid madiino dadka madiino ku soo dhoweyna ansaar oo aws iyo khasraj ka kooban bay ahaayeen waxay ahaayeen intayna muslimiintaas u imaanin kuwa ayagana wax gumaysi lamid ah yuhuudda ku haayaan yuhuud oo saddex qabiil kale ah bani qaynuqaaci bani nadiir iyo qurayda qololiira ay ku hareereysan yihiin oo ayaga dhan lagu cayaarayo dhexdooda laysku diray ayagoo oo sii yaraa haddana maalin kastaba dagaalkoodana uusan joogsanaynin markay isku yimaadeen waxa weeyaan qolo aan taag hore lahayn iyo qolo qaxooti ah oo isku yimid marka gaaladii kaloo ku hareereysneed ama yahuud ha aato ama carabta ha aatee waa loo soo kala fakanayo nin kasta wuxuu leeyahay war qoladan la wareeg waxay haysta gacantooda sidaas bay ahaayeen ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu iyadoo la xasuusinaya layidhi dagaalkan ka hor sidaad ahaydeen bal xasuusta waxaad ahaydeen qolo yar oo la daciifsanayo ardada dhexdeeda takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu adinkoo ka cabsanaya dadka inay idiin dafaano idinla wareegaan oo nin kastaba uu leeyahay kuwa aniga iyo dhaafa aniga igu filan yihiin xaalkiina sidaasuu ahaa laqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adillah ilaahay wuxuu idiin gargaaray dagaalkii badri ahay wuxuu idinku gargaaray uu idiin gargaaray adinkoo ka hor dullaysnaay oo waxa aad ahaydeen aynan jirin marka muslimiinta xaalkooda sidaas bay ahayd dagaalkan intuusan dhicin ka hor kow midda labaad dagaalkan waxaa keenay nebi moxamed calayhi salaatu salaam markuu arkay saxaabadiisi ee muhaajiriinta ahay oo maka xoolahooda lagala wareegay in badan buu isku mashquuliyay inuu ku fikiro si wax wal ugu soo celiyo xoolahoodii marka wuxuu go-aansaday markuu maqlay quraysh tijaaradeedii inay ka soo laabatay shaam ee maka ay u socoto
iyadoo badeecadii quraysh oo dhanna ay ku raran tahay. nebiga markuu ogaaday baa wuxuu iri asoo madiino joogaba wuxuu iri ninkii gaadiidkiisa maanta diyaar u yahay hore ha ii soo raaco. xataa ninkii gaadiidkiisa meel kala jiray ama beerihiisa ama meelo kala jiray lama sugayaa layiri wixii diyaar ah hala soo baxo. 70 awr iyo hal faras bay ay xoolo ahaan oo gaadiid ay ka wateen. markaasay inta kale waxaa weeyaan dad oo seefaftooda wada lugeynay bay ahaayeen yay baxeen. ulajeedada iyadoo ay tahay in mushrikiintii kufaar quraysh xoolahoodii oo tijaaradoodii in lala wareego siday badal ugu noqoto muslimiintii xoolahoodii lagu soo reebtay mako. nebiga saasuu u soo baxay. markuu dhex maraya Abu Sufyaan oo qaafiladaas madax ka ahay arrintaa maqlay kufaaru quraysh oo maka jooga u cidirtay. fartiintii buu gaarsiiyey xoolihiina kaalay badbaadsada. waxa weeyaan 1000 qofood oo hubaysan oo gaadiidkoodii wadato yaa soo baxday. Abu Sufyaan jidkii intuu wareejibay oo jidkii baxriga ahay hoos u maray. muslimiintu Abu Sufyaan dhex u joogsadhahay iyo gaaladii oo maxaan ku ira soo baxdo xoolihiina badbaadsanaya dhahay ay dhex isaga hor yimideen. marka muuminiintu waxay ku noqotay lama filaan li'annahu dagaal oo hada jeesh dhan oo kufaaru quraysh ah oo shalay adiga xoolaha ka soo reebtay maanta inay la dagaalamaan uma ayna kicin ee xoolahan inay mar ay la wareegaan oo ay la soo laabtaan bay u jeedeen. marka tii waxay ku noqotay wax lama filaan ah. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas wuxuu ula jeeday in maanta ay wax weyn meesha ka dhacaan. wa yuriidu allahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wa yaqtaca daabira alkaafiriin. marka ilaahay sidaasuu doonay in xaqana maalinkaas uu muuqdo gaaladana ay meeshaas ay ku baaba'do. marka muslimiinta xaalkooda baa laga hadlo waxaa la yidhi markii loo sheegay in tijaaradiina ay badbaaday oo jid kale la marsiiyey kufaar quraysh oo awoodeedii oo dhan wadatana ay soo baxday dad badan baa cabsi ay gashay oo dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaan ku iraahdaa la tagay. ilaahay baa ka hadlay wuxuu iri watawaduuna ana gayra daati shawkati takuunu lakum. waxaad adinka jeclaydeen qoladan weynoo dagaalka soo qaaday maahine inaad la kulantaan qoladii tijaarada wada saasaad doonayseen. marka waxay ku adkaysanayeen nabi maxamedow nimankan hanaga horgeyne tijaaradii aan raadsanno yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayana lahum kaannamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruun. qofka bani aadamka saxaabiba ha ahaado cabsi baa gelayso. markay ogaadeen inay lagama maarmaan tahay in kufaaru quraysh la qaabilo oo dagaal lagu qaabilo qoladii tijaaradoodina ay baxday yay qaar waxay leeyihin may ilaahay rasuulkiisiyow aan tijaaradii raadsinay nimankan aan ka weecanno ayagoo ogaaday in lagama maarmaan ay tahay in la qaabilo tijaarana aan la gaari karin. qaarkood baa cabsida waxay ka gaartay waxay la mid noqotay ayagoo mowd loo hogaaminayo. macnaha waxay u arkeen in kufaaru quraysh oo dhan la dagaalamo mas'alo ay tahay isdirid inay tahay ay u arkeen. marka wadciga sidaas buu ahaa. lagama maarmaan weeyaan in dagaalkii la galo. cadadka marka muslimiinta maalintii badra waxay ahaayeen sidii muslim oo wariyey muslimiinta waxay ahaayeen 319 iyo 315 inta u dhaxayso. muslimiinta waxa weeyaan 320 waxaan gaaraynay 315 ka badan 16 17 300 oo dhowrkaas raacsan tahay bay ahaayeen. marka gaaladana waxay ahaayeen 1000 fama fawq 1000 iyo wax ka badan bay ahaayeen. marka sidaas wax isu dhigma ma aha. haddana waxay noqotay in la qaabilo waa lagama maarmaan. ayib sidaa daraaddeed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam dariiqo u furan ma jirin
إنه إلهي بريا ماهن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين إلهي بيوعي درسدين أي كبريان إلهي يو وري نبي مالين كاس مركي لبدي جيش سودوات حور اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم إله كوان ما أنت هدي لله وحكى لو كعابد الله ما أركا يبوري إله في أذان ضعيف أو مسلمين تا إله وقرقار دعاء النبي قال لقوري مالكاس وحاكمت كما في سنن أبي داود إنه النبي يريي اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم سداسو نبي إلهي كبري إلهي وددك واددك بالله إيه أديك حنبار أو سيديك سعولها يعني إله كان إله وادد قاونا إله أديك وحاد سيسا arad baxsi ilaahayow waa dad gaashaysanan dharji marka waxaa sidaas daraaddeed baa ilaahay maalintaas badara yuu u gargaaray sida noo imaan doonto mushrikiintii oo kibirsan baa yimaadeen bataran wa ri'aa annaasi wayasuduuna can sabiili illaahi buu yidhi as ilaahay yidhi ayagoo kibir iyo isla weynin maanta muslimiinta waa inaan soo afjarna ayagoo dhahaya ii soo baxeen شيطان عمامة واوين وتأويمذ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ورمانتا ننكي انتو يمذ وحوري وردد يهابو مانتا وحيدين كأتكاكرا مجرو جولان سوسا ميوددك إذين كهور إيمانا دد يرو مساكين أو كبلان سعودويان بوري مركب مانتا وحيدين كأتكاكرا ددك هدي على وجه الأرض كنول وحيدين نقمي كرم مجران وإني جار لكم أنا قرقر بان إذين في دينيا مركا وحويا ولا يسكو حبر وعدي معني ساسي كدغانتاي مركا ددكاس حالة أي دقالكو قليان فيري نفتو دي بي ميسك سارون إلهي بي كقدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وحويا يعني دقال نفت هذا كين marka muslimiinta ilaahay wuxuu doonay inuu ku dhiirigeliyo dagaalka inay galaan wa id yuriikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula ilaahay subhanahu wa ta'ala say isugu dhiiradaan yaa gaaladii muslimiintu wuxuu u muujiyay dad yar inay yihiin cagsigoodii gaaladina muslimiinta waxay u arkeen kuwa yar inay yihiin inay isku soo boodaan oo ciyoonba dagaalka isla galaan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saas u yeelay dagaalkii marka waxa weeyaan waa bilowday wuxuuna ku bilowday ayagoo muslimiinta ay heleen ballanqaad ilaahay xaggiisa ah marka ugu horreeya ilaahay wuxuu ugu bishaariyey nebigu waxyooda inay guulaysan doonaan marka labaad waxaa la yidhi malaa'ig baan idin soo diri doonaa dagaalka idinla geli doonto kalsooni rabbi bay marka ay wateen id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan ilaahay baa malaa'igta u waxyooda wuxuu iri dadka mu'miniintana qalbiga u dejiya gaaladina argagax ku rida markaasaa layidhi dagaalkana wax ka galoo qoorta ku dhufta baa layidhi markaasaa loo bishaariyey nabigaa layidhi sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur aa layidhi jamciga waa la jibi doonaa waana wayna dib jeedi doonaanoo dhabarkaa loogaga dhici doonaa marka muslimiinta ayagoo macnawiyaadkooda loo dhisay ballanqaadyaal ilaahay haysto yaa wixii cabsi ahayoo dhan baa ka baaba'day sidaasaa waxay keentay inay markaa ay dagaalkii ay ku dhiiradaan ayib laakiin dagaalkaas marka la galay ilaahay wuxuu heli karay inuu yidhaha guryihiin iska fadhiya malaa'igaan u soo diraa markaas ayadaa kulligood baabi'inaysa ilaahay ma dhihin qofka waxaa weeyaan gargaarka ilaahay wuxuu ku mutaysan karaa wuxuu karaankiisa asiga horta inuu bixiyo markaa kadib baa ilaahay wuxuu rabo kugu gargaaraya laakiin gurigaada iska fadhi idhab anta warabuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun wax la yihahda ma jiraan meeshaan iska fadhinina ilaahu adiga gaalada la dagaalan lama ogolo
ولذلك إلهي وحوري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم